salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaaray waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawo doontaanna waxaa qayb ka noqonaya Trump ayaa ku hanjabay canshuuro cusub oo la saarayo midowda Yurub iyo Apple taasi oo soo celinayso cabsidii ganacsiga wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Suuriya iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka Suuriya kadib isbeddel u galay dalkaasi dhimashada Gaza ayaa kor u dhaaftay 53,900 iyadoo Israa'iil ay dishay 79 kale oo Falastiiniin ah qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku daawo doontaa saaxiibayaal balse faahfaahinta qodobadaasi intaan u gudaglan haddii ay tahay marka kugu horeysa soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gombeelka furo muuqaalkana like garee sii share garee saaxiibada la wadaag oo ka mid noqo saaxiibadan halkan markasta ugu baahino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa hagaag daawadayaal haddii aynu gudagalno ugu yaraan 53,901 Falastiiniin ah ayaa lagu dilay dagaalka xasuuqa ee ka socda Israa'iil tan iyo bishii Oktoobar sanadkii 2023 wasaaradda caafimaadka ayaa sidaas sheegtay war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 79 meyd ah la keenay cisbitaalka 24 saac la soo dhaafay halka 211 qof ay ku dhaawacmeen taasi oo tirada dhaawacyada ka dhigaysa ilaa iyo 122,593 weerarada Israa'iil ciidamada Israa'iil ayaa dib u bilaaway weerarada marinka Gaza 18 bishii Maarso waxaana tan iyo markaasi ay dileen ilaa iyo 3,774 qof oo kuna dhaawacmay ku dhawaad ilaa iyo 10,600 oo kale taasi oo burburisay heshiis xabad joojina iyo maxaabiis isdhaafsi oo dhacay bishii Janaayo bishii November ee la soo dhaafay maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirkii hore difaaca Yoav Gallant oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadanimada Israa'iil ayaa sidoo kale wajahaysa kiis xasuuqa oo ka socda maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ku saabsan dagaalka ay ku hayso marinkaas iyo Gaza wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Asad ayaa kula kulmay Dimashq ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya oo ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka xasiloonida iyo dadaalada cadaaladda ee ku meel gaarka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Suuriya waxay sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen ama ay ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo ammaanka iyo xasiloonida dalka waxayna ka wada hadleen cadaaladda ku meel gaarka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga u dhaxeeya dowladaha Suuriya iyo qaramada midoobay ee arrimaha kala duwan madaxweynaha dalkaasi Suuriya Ahmed al-Jara ayaa soo saaray wareegto 18 Maajo oo lagu dhisayo hay'ad cadaaladda ku meel gaar ah una xil saaran soo bandhigida xadgudubyada u geystay taliskii hore isla xisaabtan dambiyada iyo bixinta midowga dhibanayaasha ah kulankani ayaa daba socda baaqyada gudaha iyo dibadda ee soo taraya kuna aadan in lagula xisaabtamo xadgudubyada u geystay taliskii Bashar al-Aswad intii uu socday ololaha bini'aadanimada ee kaga hor yimaadeen mudaaraadyadii bilowgii bishii Maarso sanadkii 2011 xadgudubyada la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah in tobanaan weerar oo hubkii kiimikada duqeymo hawada sare oo lagu garaacay goobaha ay dadku ku badan yihiin xariga aanan loo meeldayn dadka oo la waayo jirdil xooggan ee xarumaha dadka lagu hayo kuwaasi oo horseeday dhimashada iyo la'aanta boqolaal kun oo rayda sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay iyo caalamka Bashar al-Aswad oo ah hogaamiyihii Suuriya ku dhawaad 25 sano ayaa u baxsay dalkaasi Ruushka 8 December isagoo soo abaajiray taliskii Bathad Brahimi oo xukunka haytan iyo sanadkii 1963 Jara oo hogaamiyaha xoogga ka soo horjeesto nidaamka Bashar al-Aswad ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ilaa iyo bisha Janaayo waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo koobinaa wararkii caalamka oo kala socoteen barkulan media balse haddii aad nala soo gaarteen dhammaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanaya inaad YouTube-keena subscribe saarto aad gambaleelka furato muuqaalkana like saarto aad ka mid noqon saaxiibadan halkan markasta ugu baahino arrimihii ugu dambeeyay caalamka